الحمد لله الخالق البارئ المصور العسيس العلي المتكبر الجبار الذي كل جبار له دليل خاضع وكل متكبر في جانب عسه مسكين متواضع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام walaalayaal waxaan wax ka odhan lahaa kelmad kooban oo ku saabsan sifatun damiimatun cinda ahli lislaami waddiinu lislaam, sifo aada iyo aada u xun dadka muslimiinta ah dhexdooda iyo diinta islaamka. ilaahay subxaanahu watacaala iyo nebi maxamedna ay nooga digeen haddaynu nahay dadka muslimiinta. waa sifada loo yaqaano kibirka. kibirka walaalayaal waxa qeexay micnihiisa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam. macnahay dad badani u haystaanna maaha. nabigu wuxuu yidhi siduu warinaya cabdullaahi ibnu mascuud, laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi midqaalu darratin min kibrin. geli maayo jannada alle qof uu qalbigiisa ku jiro in yaro kibiri. qaala rajulun ina arajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasan wa nacluhu xasana. kadibna nin baa wuxuu ku yihi rasuul allahu dee ninkuu jecel yahay in dharkiisuna dhar qurux badan oo wanaagsan ahaadaan, kabihiisuna ay ahaadaan. qaala ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal alkibru badru lxaqi waqamdu nnaas. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuu qurux badan yahay, quruxdana uu jecel yahay. se kibirku waa xaqa oo la diido iyo dadkoo layska weynaysiyo. labadaas shay ayaa kibir leydhaa. in qofka xaqa kuu sheegaya hadduu doonaha kaa yaraado, kaa weynaado, qof dumara ha ahaado, qof aad ka cilmi badan tahay ahaadee, markuu xaq kuu sheegay inaad diiddaa kibir baa leydha. saasoo kale inaad dadka iska weynaysiiso kibir baa iyadana leydha. waayo dadku walaalayaal meel keliya laga soo wada jeeda, nebi aadam baa laga soo wada jeeda. kullukum bnu aadam wa aadamu khuliqa min turaab, waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam lahaa. markaa qofku inuu dadka iska weynaysiiyo iyo xaqa marka loo sheego inuu diido, labadaa shay ayaa la ydhahdaa kibir. nebigaana saa ku fasiray calayhi salaatu wasalaam. kibirku walaalayaal waa sifo ilaahay subxaanahu watacaala la gaar yahay, cid la wadaagtaana aanay jirin. ciddii ku sifowdana ilaahay wuu ku ciqaabi doono. sida warinaya abi hurayra radia allahu canhu, wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, yaquulu allahu tacaala alkibriyaau ridaa'i waalcadamatu isaari faman naasacanii waaxida minhuma alqaytuhu fi jahannama walaa ubaali. wuxuu leeyahay abi hurayra, rasuulkaa yidhi ilaahay wuxuu idhaa kibirku waa go-aygi, cadamada iyo weynaantuna waa guntigaygi. labadaa sifo qofkii igu qabsaday igula dooda jahannamaan ku tuuraa anoo aan u aabba yeelay. walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala koonkan isaga abuuray, waxa dhex yaaloo dhanna dhammaantood isagay addoomow yihi. ilaahay subxaanahu watacaala hadduu halaagayo, hadduu u barwaaqeynayo, cid wax ka weydiinaysa male. sidaas daraaddeed sifadan ilaahay oo keliya u gaarta. walihaadaa wixii ilaahay ka gaaloobay, wixii uu ciqaabay oo dhan, cid wax ka weydiinaysa iyo cid uu kaga baqanayaa ma jirto. sidaas daraaddeed waa kii ilaahay ka warramayay qowmu thamuud markuu halaagoo kale suuratu shamsi, inuu ilaahay lahaa idin bacatha ashqaha faqaala lahum rasuulu llahi naaqata allahi wa suqyaaha fakadabuuhu facaqaruuha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaa. markay hashii gowraceen ee ilaahay rasuulkii u diray ay beeniyeen, ilaahay subxaanahu watacaala dembigoodii sababtiisibuu ku ciqaabay oo uu ku baabiiyey oo uu ku simay. cidhibta ka dhalatay arrintaana ilaahay cidna ugama baqanayo. walaalayaal makhluuqase ciddii ku sifowda kibirka jarbay ka tuurta, waxaanay gaadhsiisaa heer iska daa cid kaloo ilaahay u nimceeyey ee arsaaqaya ee quruxdu ku faanaya siiyey inuu ka hor imaado. waa ta keentay ibliis inuu ilaahay subxaanahu watacaala kaga gaaloobo. waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa qaala asjudu liman khalaqta diina. ilaahay wuxuu tilmaamayaa malaa'igtii markii la yidhi u sujuuda nebi aadan inuu ibliis yidhi waxaan u sujuudaa cid aad ka abuurtay dhaho. ibliis waxa ku kalifay inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka gaaloobo oo samada laga soo eriyo oo la nacdalo oo ahlunaar isaga iyo ciddii raacdaaba ay noqoto. waa kibir weeyaan. wuu iska kibrinayey
نبي الله آدم عليه السلام فرعون يا نمرود يا كفارتي ووينا يو إن إلهي من ويان اسكتايو وحي قارسي سهر إله نما يقاركوت شاكتان يصفات كي إلهينا شاكتان فرعون واكي لها فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى انتو تطيرن سوو يريبا بولانو إلهي بابانا ربي جيني وينا واني قبول محاكو كلفي وكبر نمرودنا واكي لها مرك نبي الله إبراهيم عليه السلام لدوديي قال أنا أحيي وأميت أنا أحبان نولي إحنا وانتنا سفوين كي إلهي بوشاكت كبر باو حاوكي إسكتا قال هذا قال كود كبر كوحو كارسي إلهي تحدي كصمايا إرادان إلهي يو دين تناتي حق تانا العذاب والنكر وكي إلهي قرآن كقوة رمي على يبيحو كسو تكتينيكي لورين ترين نظر ابن حارس وكفارة قريش بكمنا وكيدي ومن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم لا إلي وقوله إن هدي نبي محمد دينتي سحقتها إلهي وصمد لك حنا يكن يعذاب waayo kibirku qofka uu indhatira uu nadagatra laakiin maxaa ka gaaray dadkaas oo dhan ilaahay waa ka quraanka ku leh وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فرعون يا هامان يا قارون أيا نبي موسى بينات كي دين تبولين ويكبرين بالله سبحانه وتعالى ويكبرين آيات كي دين تبي قالوا بيني كبرين مد والبدن بيسوى الوقع مد لقرقيو مد صمد لقحانية عذاب لقى كانوا مد نلك للقويو مد بس إلهي سبوا عذاب وقاسوا إلهي اللي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلهي وليبا مطلمين mid walaaba gacantiisu ku shaqaystay waxawlakum walaalayaal kibirku waxa weeyaan sifada aadka u xun nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay maalinta qiyaamana in si aad iyo aad u dhib badan dadka kibirka ku sifooba loo cadaabi doono nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yakhruju min annaari cunuqun lahu أذنان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق ما أنت قيامه وحنارتك صوب حيطانا مدح وحليه مدح حاصل لما يندو إيا اللي بدقود وحكو مقلي إيا هذا عرب وقهض فقال وكلت اليوم بثلاث صدح بالله وكي شبوراني عرب حاس مدح حاس وقال صوحورنا بكل جبار عني متكستو مدح حتكايو يسلوينا ما أنت أنا الله يتلصحت وبكل من دعا مع الله إلها آخر يقف كستو إله شريك يلتر وبالمصورين يقوى صورا مركا لنبي عليه الصلاة والسلام وحط المام دادك أدونك يسكوينين شري إن مالت قيامي الله سبحانه وتعالى ويرين طون وآدياد ويرين طون المتكبرون يوم القيامة أمثال الدر في سور الرجال بالنبي عليه الصلاة والسلام maalinta qiyaame waxaa la keenayaa dadkii isla weynaa ee iskibrin jiray iyagoo aad iyo aad u yaryar oo quraanjada laalay laakiin waxay leeyihiin suuradoodii caadiga ahayd marka la leeyahay quraanjada leegyihiin kama dhigna inay quraanjada u eeg yihiin waa qofkii bini aadankaa laakiin xajmigiisi ayaa waxaa la leekaysiiyey quraanjo nabigu wuxuu yidhi yakshaahum udullu min kulli makaan fayusaaquuna ilaa sijnin fi jahannama يسمى بولس markaas dulliga meel walba kaga imanaya jeel jahannama ku dhex yaalo bools layra ayaana loo kaxeynaya markaas abu tilmaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam yusqawna usarata ahli an-nar dinat al-khabal markaas la waraabinaya dheecaanka iyo dhiiga iyo wixii ka soo baxa ahlu naar ayaa cunto iyo sharaab looga dhigay waayo markii khalqigi ilaahay iska weynaysiiyeen iskibriyeen diintii ilaahay qaadan waayeen ilaahayna saas ugu abaalguday in dadkii laga yaryareeyo oo xajmigoodii aad iyo aad loo yareeyo walaalayaal sifada kibirka la yidhaha waa sifo aad iyo aad u xun adduunkana qofku wax badan ayaa u seegaya xitaa
qofka hadduu kibro taladaa ka xumaata. waxaa laga soo wariyaa salafkii inay odhan jireen qofka kibirka in yaro ka midii qalbigiisa hadday gasho waa inta nusqaan ay caqligiisa gaadhsiinayso. xaddiga kibira ee qalbigaaga gala waa xaddiga nuqsaan caqligaaga gaadhaysa. hadduu kibirkaagu badan yahay caqligaaga nusqaan badan baa ku jirta, waayo waxba dhegaysan maysa haddii xitaa lagula talinayo. xitaa xukaamta rag waaweyn oo adduunkan ilaahay subxaanahu watacaalaa ku halligay tala xumaa halligtay, waayo kibir bay ku sifoobeen, waxba ma dhegaysanayaan. kibirku wuxuu keenayaa walaalayaal dadka ahlu xaqa ah in qofku dhegaysan waayo. kibirkuna waa wax ilaahay subxaanahu watacaala laga magan galo. walaalayaal kibirku waa sifa aad iyo aada u xun, aynu iska ilaalino. qof kastoo muslimana aakhiriya adduunka wuxuu ku badbaadaya inuu iska ilaaliyo. بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني